السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن دعوة ديال هلكن وأهلا كوسو دواada warkeena qodobada aad daawo doontaan haddii ay wana qadaro anaguna aan idinku soo gudbin doono waxa ka mid noqon doona hogaamiye Muuse Biixi oo ka hadlay qabyaaladda uu ku qaybiyay dawladdiisa. waxaan kaloo idin soo gudbin doonaa haddii baraali ka ahdo madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ku baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo Muqdisho oo laga iclaaminayo banaanbax looga soo horjeedo sidii wax looga qaban lahaa qaraxyada aan kala joogsiga lahayn. waxaan kaloo idin soo gudbin doonaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo kulan gaar ah la qaatay hoggaanka sare ururka Ahlu Sunna ee gobolka Galgaduud. waraysi gaar ah ayaan idinkaga haynaa. waxaan kaloo idin haynaa isla markaasna warkeena aad ku daawo doontaan labada gudoomiye xisbi ucid iyo wadani oo dalka ka dhoofay iyo sababta socdaalkeedu uu xambaarsan yahay ayaan idin soo gudbin doonaa. u diyaar garooba mar kale iyo warkeena qodobada iyo kuwa kale oo dahsoon ayaan idinku haynaa. bagaag daawadayaal mar kale ayaan sanad wanaagsan idin leenahay aan ku bilownay sida hordhaca warkeenaba aad ku daawateen. hogaamiyaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin qabyaaladda uu ku qaybiyay xukuumaddiisa, isla markaasna uu xukuumadda Somaliland ka safay dad ay xigtay xigaalayeen. Muuse Biixi Cabdi oo muuqda in uu hilmaansan yahay waxa uu ka falay madaxtooyada Somaliland ayaa waxa uu ugu baaqay shacabka Somaliland in ay ka shaqeeyaan ka hortagista qabyaaladda, midnimada iyo la shaqeynta ciidamada ammaanka. arrimaha mar uu ka hadlayana waxa uu yiri ma shaqeyn karaanba ehelkiisii meeshii baa la xidhay martiisiga ahayd dhakhtarkiiba dagaal bay tagaysaa gacantaaba loo qaadaya neeraska iyo kii kale socday see loo daweynaya. marka inuu wacyigelin badan u baahana dadka danta guud wada waa waajib. waxaana codsanayaa in lala shaqeeyo waliyaha martiisiga cisbitaalada iyo duldabiskaba waayo waxbay badbaadinayaan. inta ay hambalyo iyo wada shaqeyn wanaagsan baan iga oranayaa. maadaama nabadgelyada aanu ka hadlayno qodobka nabadgelyada dabdabisku dabku damiyaa oo qura dadka dhaawacan uu soo nabadgeliyaa xoolihii ku dhacana uu soo xoojiyaa weli waxa uu isuu ku darsadaa qaar kale oo gawarda qalibnimo iyo wixii dhibaato dhan buu gulmadaa way ku mahadsan. haddaba nabadgelyadeenna sidaynu u ilaalinaa baa taala xaaji aadana waa ka hadlay. horta nabadgelyada dee innagaa ku nool iyadoo inuma noola. nabadgelyadu waa dhowr qaybood. dad meel ku wada nooli haddaad tihiin qolada dabdamiska qoys reer intii mutawaca meel isku timaadaba khilaaf waa imanaya. markaa kaasi waa caadi noloshu ka mid yahay khilaafku waana la xaliyaa. waa hawsha aynu maalin walba u taaganahay dowlad iyo oday iyo sheekh iyo waxgaradba waxaynu u joognaa inaynu khilaafaadka dhexdeena hagaajino. maalin walba waxaa islaayeen reero barkad baan qodayaa ha qoodin, halkan aan daaqayaa daaqi maayo, jagadan aniga ale waan kugu dilayaa warmahay inaan isku dilin dhul yar. waa khilaafaad joogtaa taa waa xalisanayna. waxay ka mid tahay waxa nolosha xoolaa la isku qabsanaya. shirkad baanu ahayn lacagtii barbaadiga qaadatay meesanay ahayd waa caadi. waa waxaynu dhisanay cadaaladda, waa waxaynu dhisanay booliiska, waa waxaynu dhisanay jeelka, waa waxaynu garta u dhisanay inaanu khilaafaadkeena iyo qofka qaldan qabano. waxaa jira nabadgelyada mid jiritaankeena khatar gelinaysa. jiritaankeena mid khatar gelinaysa. Somaliland baa la yidhaahdaa intaa 30 sannadood aynu jiray ilaahay mahadib iyo joognaa waynu nuudaynaa waynu koraynaa waynu dhaqanaynaa waynu dhalaynaa waynu koraynaa. maxaa inooga balana qofka intaaba la colay inuu baabiyo doonaya. af buu ku baabin karaa dacayad, ficil buu ku baabin karaa, khatar kaloo inooleema karaa. waxaynu u baahannahay marka hore inaynu ka midowno Somaliland ilaalinteeda waxa nabadgelyadeeda guud ee qaranka waxyeelay inuu ka midowno inoo balana qof walba ama 10 jir ahaw ama 2 jir ahaw ama 100 jir ahaw ama madaxweyne ahaw ama ninka shaqada ugu yar haya ahaw. wagaag daawadayaal warkeena harunaaga ayaa daawanaysaan. labada gudoomiye xisbi mucaaradka ah ee wadaniga ucid Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo Faysal Cali Waraabi ayaa dalka isaga dhoofay maanta
socdaalka labada guddoomiye mucaarad oo kala duwan ayay wararku sheegayaan in uu la xidhiidho arrimo u gaar ah oo aan siyaasad ku salaysnayn, waxa uuna socdaalkooda ku soo beegmaya iyadoo aynan weli dhammaan qadiyadda guddiga doorashooyinka iyo wakhtiga iyo dib u soo celinta kuwii hore oo ahaa qodobadii ay soo saareen ergada dhexdhexaadintu. Labada guddoomiye mucaaradka ee Somalilan ayaa la sheegayaa in ay dalka ku soo laaban doonaan ka hor inta aanan la gaadhin 10 January ee sanadka cusub 2020 oo uu madaxweynuhu qabsaday in uu soo dhammeeyo sidii loo fulin lahaa labada qodob ee ergadu soo saartay ee kala dirista guddiga doorashooyinka ee wakhtigan iyo soo celinta kuwii hore si loo ambaqaado qodobo la isku fahansan yahay. wagaag daawadayaal wararkeena hawlnaaga ayaa daawanaysaan. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa waxa uu ku baaqay in loo midoobo dagaal ka dhana Al-Shabaab oo looga sifeeyo gobolada dalka. Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa waxa uu sheegay in uu aad uga xun yahay qaraxii lagu laayay dadka shacabka ahaa ee Muqdisho, isla markaasna waxa uu ku baaqay in loo midoobo dagaalka lagula jiro dagaalyahanada Al-Shabaab. sidoo kale Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa waxa uu shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday in ay u midoobaan isla markaasna ay ka shaqeeyaan horumarinta dalka, isaga oo duco dalka u soo jeediyay. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay dhexdooda iscafiyaan, sidoo kalena Al-Shabaab ay hal meel uga soo wada jeestaan maadaama qaraxii ugu dambeeyay ex control Afgooye lagu laayay in ku dhow 100 ruux oo kamid ahayeen ubaxii dalka oo jaamacado u dareerayay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa thana'u lillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani, ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba way idin salaamaya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waxaan rabaa inaad ogaataan inaan aad uga xumaaday dhib weynna ay noo geysatay qalbiga iyaga u geysatay dhibaatadii ka dhacday magaalada Xamar iyo Afgooye dhexdooda oo lagu laayay dadkii masaakiinta ahaa oo ardada u badnaa oo waxay bixiyeen ay jirin lagu qarxiyay iyo xataa dad ajnabi oo Turki qaarkood ah. arrintaas waa arrin dhibaatadeeda leh. markii koowaadna ma aha marka la qarxinayaa dadka. sabaanada tan oo dhan fidno iyo balaayan ku dhex jiray. fidnada iyo balaayadana waxaa keena ciqaab weeye Ilaahay uu ku ciqaabayo dadku markii uu sidii la rabay u socon waayo oo diintiisina sidii la rabay u haysan waayo, asaguna sidii la rabay isu dhowri waayo, muslimna sheeganaya. marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wa asaabakum musiibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathiir. wax kasta oo musiibaha oo idin ku dhaca waxaad adinku gacmihiina ku geysateen weeye, waliba markaas in badan la idin ka cafiyaa buu yiri Ilaahay subhanahu wa ta'ala. musiibada nagu dhacaysa marka dhibaato aan geysanay weeye, haatan ma ayan bilaaban mar hore soo bilaabatay oo muddo soo jirtay. sida kaliya oo ay ku bixi kartaana waxa weeye Ilaahay in loo soo noqdo oo laga daayo dadka la leynayo, dadka laga daayo iyo dhiigooda la xalaalaystay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku yiri man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jamii'an. qofkii naf gooya ayadu waxba dilin oo aan markaas dil ay gashay daraadeed loo dilaynin, faka'annama qatala an-nasa jamii'an. dadka Ilaahay abuurtay oo dhan asagoo laayay buu la mid yahay baa Ilaahay yiri waman ahyaaha fa ahya an-nas. qofkii nooleeyana sidoo nooleeyo buu la mid yahay. Ilaahay sidaas uu yiri quraankiisa ku yiri. dhanka kale Ilaahay wuxuu yiri
dadka ilaahay halaynina ilaahay dadkiisa halaynina ilaahay ka baqa oo ka cabsada oo halaynina dadkiisa dadka iska daayay si qaab darra xoolaha in loo laayaa ayaan ilaahay ogolayn marka dhibaatadaas dhacaysa ilaahay in loo toobad keeno weeye hala toobad keeno ayaan leeyahay dadka waxaan ku leeyahay hala toobad keeno waa hagaag daawadayaal warwarkan arwaag ayaa daawanaysaan waxaa socda kulan u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo hogaanada sare ee ururka Ahlusunna wal Jamaaca oo ka soconaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug kulanka ayaa waxa looga hadlayaa israasaaseen dhex martay hogaanka Ahlusunna ilaaladooda iyo ciidamada dawladda ee ku sugan Dhuusamareeb iyadoo arrinka guddi loo saaray haddaba si aan wax badan ugu ogaano waxaan qadka telefoonka Dhuusamareeb aan kula hadalnay afayeenka madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ninka lagu magacaabo Ibrahim Jeekay oo inagu warbixiyay kulanka waxa uu daaran yahay saan la socotiin ba xalito magaalada tan Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxaa ka dhacday ismaandhaaf kaasoo sababay in markii dambe ay isku bedesho gacan ka hadal sida aad ogeydeenba isku dhacaas wuxuu saameeyey joogii iyo isku socodkii iyo degenaanshihii ee caasimadda tan Galmudug ee Dhuusamareeb waxaan tuumaynaa innaga in weerarada dhinaca dowladda talisyada amniga xaggooda booliiska iyo nabad sugidda xaggooda ay ka yimaadeen ciidamada Ahlusunna wal Jamaaca ilaalada ka haya ee xarunta madaxdu ay degan yihiin ay iska caabin sameeyeen iyadoo arrimahaas xalaytu si hordhaca saraakiishu ay u galeen arrintooda inta badanna la kala dulsiyey difaacyadii labada ciidan waxaa maanta kulan hadda weli xitaa ilaa hadda socda oo aan weli natiijo ka soo bixin weli u socdaa madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug Dr. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Xasan Cali Qare oo isaguna magaalada ku sugan ma jirto kulanka ilaa hadda cid ku weylisa labada mas'uul marka laga soo tago kulamo inta aanu kulmin labada mas'uul ay la soo kala qaateen saraakiisha dhinaca ammaanka labada dhinac u qaabilsan arrintaas oo la doonayo in lagu dhameeyo ismaandhaafkii xalito ka dhacay magaaladan marka kulanku hadda waa u socdaa waxaana rajaynaynaa in wax fiican ay ka soo baxaan waa sababta ilaa hadda annaga aan fahmi leenahay sidaad ogtahay baa magaaladan waxaa jooga ciidamo badan oo aan munaasib ahayn oo dowladda federaalka halkan ay keentay kuwaasoo qaybaha kala duwan ee ciidanka isugu jira waxaa si guud loo wada ogyahay Dhuusamareeb inay tahay magaalo ammaan ah oo xasiloon oo kana mid ah magaalooyinka dhinaca amniga marka laga hadlayo ugu horeeya marka dhammaan ciidamadan badan oo aan munaasibka ahayn markii hore aan ka dignay inaysan u imaanin qaabka amni sugidda laakiin waxaan tuunsanahay weeraradu inay xaggooda ka yimaadeen sidaad ogtahay ciidanka ku sugan xarunta Inji waa ciidan ilaaliyo madax maahan ciidan iyaga weerar qaada maaha marka waxaan fahmi leenahay iyo qayb ka tahay ilaa hadda in arrintan ilaa hadda inay dhacdo waa arrin ilaa hadda aan ku dhaynaa fahmi leenahay laakiin diyaan u saarnay waxaan rajaynaynaa inaanu ogaano ujeedka ka dambeeya weerarkii xalaadu ilaahay waa hagaag daawadayaal guud ahaan intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa wararkeenu aad ka daawanayseen hanuunaag haddii aad ku cusub tahay janalka fadlan subscribe saar si aad ula socota wararka warbixinada dhacdooyinka iyo muuqaalada cusub sanad wanaagsan ayaanu idin leenahay